halkan waa magaalada Muqdisho gaar ahaan meel aan sidaasi uga fogeyn isgooska Tarabuunka waxaana xiran isgooska iyo guud ahaan wadooyinka ku teesan wadada wadnaha oo ah bartamaha magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda lama oga sababaha ay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay jidadka magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoosyada ay u diideen gaadiidku inay isugu gudbaan shalay ayaa waxaa xusid mudan in wadooyin badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay xireen taasi oo la sheegay in markaas sababteedu ay ahayd aaska Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka markaas soo maray Cali Mahdi Maxamed kaasi oo magaalada Muqdisho lagu aasay hadda oo ay xiran yihiin wadooyinka magaalada Muqdisho dadku ma oga sababta dawladda federaalka Soomaaliya ma aysan ka warbixin sababaha ay u xirtay balse qaar ka mid ah shacabka iyo gaadiidleyda markaasi la kulmay xiritaanka wadooyinka ayaanu markaasi la dhaxqaadnay codbaahiyaha warbaahinta Nation waxaan wax ka weydiinay sida ay u arkaan iyo sida ay u saameysay marka aniga horta waan daawada leeyahay marka waxa weeye jid boor xiran ayaa waxaan soo maray jid waxa iska talo soo maray iska talo wax xiran wax lagu xiray iyo wax ku xiran midna ma aqaan marka haddana waa weynay waxaan soodaa dhinac iyo bakaaro iyo ilaa baaro wax oo maartay ilaa wax hore oo iyo wax warbixina lama hayo marka dadku waa dhibaato ilaahay qoorta u galiyo marka wax ka cilnay wax ka naxayna midna ma leh waxaan baqaynaa in dadka loo naxariisto oo maartay ilaahay leeyihiin dadka loo naxariisto xariis ilaahay baa iska leh marka in dadka loo naxariisto oo naxariis fiican loo naxariisto oo maartay dadkan maartay nimanka hadda meelka jooga inay dadka u naxariistaan oo xaaladda dadka ay fiiriyaan ay wax isku haystaan madaxweynenimo iyo magaciisa iyo adduunyo tabcayaan laakiin dadka inay fiiriyaan oo xaaladda ay fiiriyaan ayaan ku baaqi lahaa marka wallahi inay waa dareemi kartaa maadaama wadadii meelihii ugu muhiimsaneed ay ka xiran tahay Tarabuunka oo kale meelihii ugu muhiimsaneed wadada halboolaha oo laga shaqeysanayo haddii ay ka xiran tahay wallahi waxay ii saameysanayahay haddiiba macnaha oo magaalada ilaa waaweyn tahay mugto magaalada qayb ka mid ah ka shaqeysay noqonay shaqada ma dhamaystirna marka shaqadii sababtoo ah haddii qaybtii ugu muhiimsan laga xiray waxay noqonayaan macnaha habsan weyn ah galeena shalay iyo maanta niyo horta waa aad u habsaanay shalay horta aniga waxa ma bashaqeyn marka mar walba in wadada oo macnaha loo dhaho calaashan wadada xiran wixii ku xirantaana aadan ogeyn wallahi niyo horta ma garanayna waxay tahay laakiin mar walba waxa fiican shacabka in loo daneeyo shacabka xoogsato waaye anaga marka ariile kala hadlo dawladda mushaarna ma siiso xilna dawladda kama hayno waxna kama rabna macnaha laakiin irsaaqada ilaahay noo qoraadsanaynahay wadada ha inoo furaan bis bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacayga waa maxamed axmed mire saakay waxaan ka soo toosay Daynile waxaan soo maray jidka warshadaha anagoo u soo socda shaqadayda goobtayda oo ku taala Cabdiqaasim waxaan soo raacay BL waxaa la yiri BL-kii awal noo shaqay jiray ayadoo baabuurta yaraad marka horeba naloo diiday ayaa haddana kala wareeg ka dhacay shalay sidoo kale ahayd laakiin shalay sabab ay lahayd sababta ay lahayd waxay ahayd madaxweynihii hore oo la aasaayay waa la dhihi karaa laakiin maanta waa garaweynay in annagoo shacabkii dawladda taageersanaay dabcan ka war helay jidad xiran waxaan fahmi la'nahay dawladdu ciday dawlad tahay shacabka ayaan fahmi la'nahay sidaa darteed waxaan soo maray dhul kala wareeg oo Tarabuunka hadda laga kala wareegayo xataa qaarkood bajaajka waa u diideen marka annaga culays weyn ayay nagu tahay qof baa xanuunsan karta islaam baa xawhay foola karta haddana ma aysan sheegin sababta ay saaka u xiran tahay oo dawladdu ma aysan dhihin sababtaas ay u xiran tahay marka annaga caqabo weyn ay nagu tahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka qutulyoonkooda raadinaya ayadoo marka hore waxbarashadii la iska xiray haddana ay u muuqato dawladda naftarkeeda ayagu shirar inay qabanayaan siyaasadana ay galsheen waxbarashada taasoo annaga awal marka hore nagu taagneed haddana
baabuurtii aan raaci lahayn naloo diiday marka annaga caqabo weyn ay nagu tahay jidadka xiran si kastaba warar madax bannaan oo ahna ayaa waxa ay sheegayaan in waddooyinka magaalada muqdisho ay sii xirnaan doonaan muddo 3 maalin ah iyadoo la tilmaamayo in loo xiri doono shir markaasi ay yeelan doonaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya aysan si faahfaahsan ama si guudba aysan uga hadlin xiritaanka waddooyinka magaalada muqdisho iyadoo ay xusid mudan tahay inaan si dhab ah loo ogeyn in waddooyinka magaalada muqdisho ay sii xirnaan doonaan maxamed yaxya jiinow warbaahinta nation muqdisho